macalinka maamul dalkeena ii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday maamul dalkeena ii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday digaya jahliga isaga masaxaye macalinkiina daawade kusoo dhawow janalka masraxa official lagu barateena casharada maadada chemistryga ciwaankeenana wuxuu noqon doonaa casharkan qaadan doona haddii alla yiraahdo ilaahay awoodda leh oo idmo isomerism of alkenes ayaa rabnaa inaan ka hadalno ciwaanka ayaa wuxuu noqonayaa isomerism of alkenes su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxaa la dhahaa isomerism are divided as waxaa lagu qeexaa as a molecules waa molecuulada with the molecular formula kuwaasoo la molecular formula isku mid ah waxay leeyihiin molecular formula isku mid ah laakiin different structural formula laakiin waxay ku kala duwan yihiin structural formula haddii la yiraahdo isomeris hala qeexo waxaan ku sheegnay haddaan ku soo celiyo mar labaad waxaa lagu qeexaa waa molecuulada leh same molecular formula laakiin waxay ku kala duwan yihiin xagga structureka marka loo fiiriyo waxaan leenahay the first three members saddexda of alkenes saddexda xabe ee alkenka ugu horeyda have only waxay leeyihiin one possible structure hab qaab oo suuragal ah therefore sidaa daraadeed the number of possible isomeres tirada suuragalka ah of alkane is calculated waxaa lagu xisaabiyaa by this formula qaacidadan macnaha isomereska suuragalka ah ee alkaneska ah waxaa lagu xisaabiyaa qaacidadan haddaad meesha uga jeedid oo ah 2n power n minus 4 plus 1 node waxaa ogsoonataa ayaa meesha ku taala node waxaa ogsoonataa this is only applicable keliya waxaa lagu qaacidadan waxaa lagu isticmaali karaa oo keliya ah up to carbon 7 carbon ilaa kaarboonka 7 ayaa lagu isticmaali karaa tusaale ahaan oo kale meeshaana waxaan rabnaa inaan si fiican uga guda galno kaarboonka koowaad ilaa kaarboonka 7 waxaa loo isticmaalaa qaacidada ah n power 1 macnaha n 2 power n minus 4 plus 1 intaan waxay u taagan tahay waxa la yirahdo number of carbon intaan waxay u taagan tahay number of carbon ay u taagan tahay number of carbon intaas waxay u taagan tahay number of carbon marka waxaan ogaanay qaacidadan in lagu heli karo waxa la yirahdo tusaale ahaan oo kale curyaha midka koobaad hal possible structure hal isomer uu leeyahay methane oo kale hal possible ethane oo kale wuxuu leeyahay hal xabo ethane oo kale propane oo kale wuxuu leeyahay hal xabo hal structure loo qoraa tusaale waxaa noogu wacan marka loo fiiriyo structure koobaad qaabkan ayaa loo qori karaa oo ah ethane macnaha methane ka wada methane oo kale structure suwaakana ethane oo kale qaabkana loo qori karaa propane qaabkana loo qori karaa so marka hadda waxaan baranay inta qaabka structure-ka loo qori karo ayaan fahnay haddii lagu weydiiyo isomereska qaacidaha lagu soo saaro waa inaad fahmi karto tusaale ahaan oo kale two number of isomereska waxaa leedahay tusaale ahaan oo kale waa kana number of isomereska waa imisa waa 2 minus 4 plus 1
plus 1 labadan haddii la kala jaro waxay noqon doontaa 2 power 2 2 power 2 oo b10 afar waaya fadlan waxaan rabaa inaan meeshaas wax yar ku celiyo marka loo fiiriyo b10 maxaa waaye iyada afar ayay wadataa b10 maxay wada leedahay afar kaarboonada waa imisa afar afar ka jar marka waxay noqonaya 2 power 0 plus 1 2 power 0 haddii number ka mid ah haddii number oo powerku uu 0 noqdo maxaa noqdaa 1 marka maxaa isla soo baxay 1 plus 1 jawaabtu waxay noqotay waxa la yiraahdo 2 waxay noqotay 2 ayay noqotay marka laba isomer ay leedahay tusaale ahaan oo kale kaarboonka kan oo kale 3 uu leeyahay soo 3 ku yeesha waa 2 kaarboonada waa 5 laga jaray 4 plus 1 plus 1 labada markii la kala jaro maxay noqonayaan 2 power 1 2 power 1 plus 2 haddii tusaale ahaan oo kale laba lagu raa hal asal madarsho wax ma bedelo labadan isku dar marka jawaabtu waxay noqon doontaa waxa la yiraahdo 3 tusaale waxaa kaloo ku soo haray kan oo kale 5 hexane oo kale waxay leedahay 6 kaarboonadooda waa imis qaacidadan isticmaal 6 laga jaray 4 plus 1 plus 1 maxaa soo baxay marka waxaa soo baxay 2 labadan haddii la kala jaro waxay noqonaya 2 power 2 plus 1 jawaabtu waxay noqotay labadan haddii la isku wargareeyo maxaa laba ku dhufo afar ay noqonaysaa markii afar noqoto maxaa lagu daraa halka lagu darayaa isomeriska hexane uu sameyn karo waa imisa waa 5 macnaha halkan waxaan isla fahnay tusaale ahaan oo kale hexane oo kale heptane oo kale 9 ay sameyn kartaa qaacidadana ku isticmaali karaa waxaan leeyahay 2n inta maxaa u taagan inta waxaa u taagan 7dana u taagan 7 maxaan ka jaraa marka 7 maxaan ka jaraa minus 4 maxaan ku daraa hal ayaan ku darayaa labada haddii aan kala jaro maxay soo baxa labadan kala jar waxaa ii soo bixi doonaa 2 power 3 plus 1 ayaana dhihayaa waa plus 1 plus 1 okay kan wuxuu noqonaa 3 jeer la isku dhuftay 2 lagu 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 dhuftay saddexdan tir haddii la isku dhufto waa imisa jawaabtu waxay noqon doontaa wax la yiraahdo 8 haddii lagu daro hal waa imis 8 haddii lagu daro hal waa imisa waa 9 maadaama 9 ay tahay number of isomers ay sameyn karto heptane waa imisa 9 waxaa waaye waa 9 marka hadda waxaad ogaanaysaa haddii la yiraahdo qaacidadan hal isticmaalo qaacidadan n power minus 4 macnaha 2n power minus 4 plus 1 qaacidadan waxaa loo isticmaalaa kaarboonkooda ilaa kaarboonka 7 in lagu raadiyo tusaale ahaan oo kale kaarboonka 8aad markii la rabo in la raadiyo waxaa la isticmaalaa 2 power n minus 4 plus 2 la isticmaalaa kan maxaa la isticmaalaa qaacidadan loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa qaacidadan tusaale ahaan oo kale 18 waa soo mahan waxaa dhihi doontaa wax la yiraahdo 2n n2 waa imisa 8 kaarboona u taagan sooma 8 laga jaray 4 8 laga jaray 4 lagu daray 2 lagu daray 2 jawaabta soo bixi doonta waxay noqon doontaa 2 oo ku power garisa labadan kala jar waa 4 waxaa kaloo kuu saaray plus 2 dheh maxaa soo baxa marka labadan 4 jeer isku dhuf maxay noqon doontaa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay
laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay intaan waa 4 intaan waa 4 intaana waa 4 4 iyo 4 isku dhufo 4 iyo 4 isku dhufo jawaabtu waa maxay waa 16 hadii lagu daro waa imisa 16 lagu daray 2 ku dar 16 2 ku dar waa imisa 18 qaacidada isticmaasho waa maxay marka qaacidada isticmaasho waa maxay waatana qaacidadana isticmaasho haddii tusaale kaarboonka 9aad la rabo in la raadiyo plus 3 ayaa leeyahay meeshaas plus 3 ayaa leeyahay waa 2n power minus 4 plus 3 ayaa la dhahayaa okay jawaabtu waxay noqon doontaa marka labadan kala jar wuxuu noqonaa waxa la yiraahdo 2 power 5 plus 1 plus 3 waaya plus 3 okay jawaabtu waxay noqon doontaa labadan hadii la baargaro intaan isku dhufto intaan waxay noqon doontaa 32 hadii lagu daro 3 waa imisa jawaabtu waxay noqon doontaa waxa la yiraahdo 35 ay noqon doontaa waxa kale oo soo haray hadii la yiraahdo kan raadi kaarboonka toonaad hal raadi hadii la dhaho qaacidada lagu raadiyo horta waxa laga helaa kaarboonka 2 power n minus 4 plus 1 plus n ayaa qaacidadan ayaa lagu helaa tusaale ahaan oo kale kaarboonka dekeyn raadi hadii la yiraahdo imisa isomer ay ku jiro 25 isomer 25 isomer qaacidada ku dabaqdi la yiraahdo inta waxa ku bedelataa number of carbon oo 10 ku bedela marka tusaale ahaan oo kale jawaabtu waxay noqon doontaa 2 kor waxay noqon doontaa 10 minus 4 plus 1 plus 1 plus 10 jawaabta waxay kusoo bixi doontaa waxay noqon doontaa 2 power 6 2 power 6 labadan kala jar kore 10 minus 4 kala jar 2 power 6 plus 1 labadan isku dar waa 11 kow waxa waaye 11 intaan marka loo fiiriyo waa 64 tusaalahaan kale intaan hadii la isku daro waa imisa waa 64 tusaalahaan kale hadii la dhaho 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay waa kana 2 lagu dhuftay 6 jeer la isku dhufto waa 2 lagu dhuftay kuwan okay intaan waa 8 intaan maxay 8 intaan waxa waaye 8 isku dhuf waa 64 waa maxay 64 marka 64 waxa ku dartaa 64 waxa ku dartaa 22 ku dar 22 ku dar jawaabtu ku soo dhixi doonto waa imisa 75 marka dekeyn meeqa ay samaysan kartaa intaas samay kartaa marka waxa muhiim ah meeshan in si fiican la isku fahmi karo hadda waxaan raadinaa in qaacidada ku dabaqay kaarboonkoodi la toddobaad qaacidana lagu helaa 8 qaacidana lagu helaa 9 qaacidana lagu helaa 10 qaacidana lagu helaa hadhow marka adii ina ku dabaq karto isku day marka hadda meeshan waxa yaala waxa la yiraahdo find the 5 isomers for hexane solution salaano kale marka loo fiiriyo hexane number of carbon ka waxa haysta 6 find the number of possible structure and so helina asbr of hexane loo heli karo qaacidadan ku helina waa qaacidada marka waxaan isticmaalaynaa qaacidada yahay 2n minus 4 plus 1 intaan waxaan ku bedelaynaa 6 ku bedelaynaa waa 6
minus 4 plus 1 plus 1 plus 1 labadan kala jar marka 6 iyo 4 kala jar waxaa kor soo bixi doona 2 power 2 power 2 plus 1 plus 1 labadan haddii la power gareeyo maxay noqon jawaabta laba jeer la isku dhuftay waa 4 plus 1 plus 1 imisay noqotay imise qaabaa loo qori karaa waxaa loo qori karaa 5 qaabaa loo qori karaa waxaa loo qori karaa 5 qaab ayaa loo qori karaa ayaa leenahay meeqa qaab loo qori karaa meeqa qaabaa loo qori karaa 5 qaab ayaa loo qori karaa waxaa loo qori karaa maxaan u qornay 5 qaab ayaan u qornay soo soco marka waxaa la yidhahay draw waxaa sameysaa sawir samey draw the carbon chain molecule to make the first isomer horta mid koobaad samey tusaalahaan oo kale markaan aniga sameynayo qaabka aan u sameynayo waxaa waaye waa kan waa kaarboonka koobaad 4 soma 5 6 qaabkaan u sameynaa okay ka labaad oo kale isomerska first isomer waa sameeyey second aan sameynaa inta qaab ee carbon structurekiis 1 2 3 4 5 waa 3 see loo habeynaa 3 waa kan 4 carbon la qoraa 4 carbon la qoraa la siinaa waa kan iga tiri marka 4 5 qaab la sheegay soo maahayn mid waa qaab koowaad qaabka afraad muxuu noqon doonaa hadda waxaan sawirnay tusaalahaan 5 aan soo saarnay isomerska hexane 5 qaab ayaa loo sameyn karaa structurekiisa marka waxaan ogaanay hadda structure-radan waa ku kala duwan yihiin sooma isomer waxaa la dhahaa wuxuu markay structure-rada structure-kan hadda 5 structure mid kale waa ka duwan yahay laakiin molecular formulaheeda waa isku mid waxaan leenahay molecular formulaheeda waxaan leenahay draw molecular formulaheeda waa isku mid laakiin structure-keedu waa difference structure-keedu waa maxay waxaan leenahay waa difference qodobka ii lixeeya wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo ina field ku buuxiyin all the hydrogen atoms dhammaan hydrogen atoms ina u isticmaalo so that's that each carbon atom has 4 bonds wuxuu 4 dabar tusaale halka mid ugu horeeya sameynaa inta ku xigta idinka sameynaa tusaale kale waxaan siinaa hydrogen siinaa hydrogen hydrogenase aan siinaa dhamaantiis waxaan siinaa
hydrogenada ka ugu horeeya waxaa siinaa 3 hydrogen excellence hydrogenation si toos u siinaa marka 5 qaab waa soo sameeyay 5 qaab maadaama aan soo sameeyay buugana waa ku taala example ka ku yaala na si fiican uga fiiriso isku day وكان hydrogenation wadaya complete gareyna hydrogenation complete wada hadda midkan labaad oo kale kan labaad oo kale waa habeynayna hydrogenation complete gareynayna inta hydrogen ka sii intana hydrogen ka sii adaa sameynaya inta hydrogen ka sii intana hydrogen ka sii kan oo kale inta kale maxaa ka sii hydrogen sababta carbon wuxuu leeyahay 4 bond wuxuu leeyahay kan oo kale anaa sameynaa inta maxaa la sameynaa inta hydrogen sii inta hydrogen sii inta hydrogen sii inta maxaa siinaysaa hydrogen carbonka wuxuu leeyahay 4 bond okay kana maxaa la siinaa 3 hydrogen kuwaas dhexda ah okay 1 hydrogen la ku dar 1 hydrogen 1 hydrogen 1 hydrogen 1 hydrogen 1 hydrogen okay waa complete so marka kan saddexaad iyo kan afraad iyo kan shanaad idinkaasina marka meeshan hadda waxaa nooga cad marka loo fiiriyo hexane waa molecular formula waa kana molecular formula waa 6 laba ku dhufo 14 okay molecular formula waa isku mid laakiin waxaa kala duwan structure-ka 5 structure 5 hab ayaa 5 structure ay yeelanaya maadaama structure-radina way kala duwan yihiin arrinta noocan waxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo arrinta noocan maxaa loo yaqaanaa isomer la yiraahdo marka waxaa laga rabaa draw the number of possible isomers barada suuragalka ah ee isomerska loo draw garay karo structure ahaan marka loo fiiriyo kan oo kale waa hadda laba isomer laba hab in laba structure u sameeyay laga rabaa bintayna kale waxaan jeclahay in 3 tahay su'aasha labaad ay waxay tahay which two molecule labada molecule meeshan ku jirta are isomer waxaa tusaale sawirkan meesha yaala A B C D waaye waxaa laga rabaa labada isomerska laga rabaa su'aasha wixii su'aalaha qabtiin waxaad commentiga ayaa kusoo qori doontiin marka waxaan rabnaa inaan si dhex galno waxa la yiraahdo physical properties of alkaneska astaamaha alkanesku ay leeyihiin alkanesku are non-polar waa alkanesku waa non-polar marka la dhaho therefore sidaa daraaddeed soluble ay non-polar shaygu markuu yahay therefore soluble in non-polar shayga markuu non-polar yahay wuxuu ku milmi karaa non-polar solvent not soluble in polar solvent laakiin kuma milmi karo polar solvent kuma milmi karo waxaa leen the first four members of straight chain alkanes oo methane ethane propane are gases waa gas sal carbon koobaad oo ah methane iyo carbonka labaad oo ah ethane carbonka saddexaad waa propane iyo carbonka afraad waa butane waa afartan waa methane ethane propane butane gas waa gas alkaneska are all lighter than water marka loo fiiriyo biyaha way ka iftiin badan yihiin sanaan kale hadda meeshaan oo kale alkaneska waxyaaba lagu yaqaan waxaa ka mid ah carbonka shanaad ilaa laga gaarayo carbonka shanaad ilaa carbonka 17aad waxaan u naqaanaa inay yihiin arrinta noocan ah solid macnaha waxaa ka wadaa liquid waxaa laga wadaa inay yihiin liquid
dareere waxay noqdaan liquid dareere kaarboonka 18aad iyo wixii ka badan ah waxay isku bedelaan waxay noqdaan solid waxay noqdaan wax la yiraahdo solid waxay noqdaan wax la yiraahdo solid waxa la yiraahdo solid ayay noqdaan waxay noqdaan solid ayay noqdaan marka waxaan leenahay alkeniska are colorless wax madahan midaba ma lahan alkenisku waxay leeyihiin have low melting point barta ku dhala waa aad u hooseeyaa barta ku karkarayaan aad ay u hooseysaa waxaana wax la yiraahdaa chemical properties of alkenis inaan wax ka faano chemical properties of alkenis chemical properties of astaamaha alkeniska astaamaha kiimikeed ee alkenku leeyahay alkeniska do not undergo many reactions ma sameeyo reaction far badan ma maro alkenisku because maxay leedahay alcohol waxa lagu magacaabaa parafins ergan parafins wuxuu ka yimid from latin latin oo la yiraahdo param affinis oo macnihiisa laga wada meaning little affinity awoodiisa aad u yarta little affinity waxa awoodiisa aad u yarta hadii su'aalaha lagu weydiiyo sababta alkenka uusan u sameyn karin falgala fara badan waa maxay because maxay leedahay wuxuu leeyahay little affinity awood aad u yar ayuu leeyahay alkeniska waxa leenahay undergo the following reactions under certain condition substitution iyo combustion so alkeniska wuxuu sameyn karaa complete combustion waa sameyn karaa incomplete combustion wuu sameyn karaa waxa leenahay in substitution markaan ku hormarno waxa leenahay substitution reaction waa falgalka isku bedelida one atom hal atom is displaced by another atom hal atom ayaa wax bedelaya atom kale lagu bedelaa general guud ahaan waxa leenahay alkeniska markaan ka hadlayno general guud ahaan alkenis undergo waxay maraan substitution reaction falgalka isku bedelida ay maraan markii reactionkan alkenisku markuu maraayo falgalka isku bedelida waxaa la socda waxa la yiraahdo halogens in the presence of the light ayaa ku jira ilayskaas iyo waxyaabahaas halogene oo reactionkaas dhacaya waxaa ku jira wax la yiraahdo halogens sida aragtid waxa kugu soo dhacay wax la yiraahdo chlorine iyo bromine iyo iodine ayaa dib u xasuusanaysaa marka this types noocyada of substitution isku bedelida isna waxa loo yaqaanaa halogenation waxa loo yaqaanaa halogenation ayaa loo yaqaanaa halogenation waa kana reactionka noocaana laga wadaa methane ayaa waxay la falgashay bromine iyo chlorine marka anaga bromine hadda isticmaalaynaa tusaale ahaan oo kale other bromic acid wax la yiraahdo HBrCl falgalaa meeshaan ka dhacay marka waxaan iska rabnaa maadaama meesha ay yaalaan waxa la yiraahdo chemical properties maadaama ay yaalaan hadda reactionkan meeshaan yaala intoo kale waxaa laga rabaa intoo kale waxaan ka dhigaynaa b ayaan ka dhigaynaa b intana waxaan ka dhigaynaa r aan ka dhigaynaa chlorine dhan ma qaadanayno okay waxaan leenahay kaarboonkan meeqa hydrogen ku dhagan 4 hydrogen ku dhagan meeqa ku dhagan 4 hydrogen falgalkan waxaa la dhahaa falgalka isku bedelida ayaa loo yaqaanaa hadda waxaan soo baranay waxa la yiraahdo halogenation waxaa la dhahaa plus pure bromine wala bromine meesha taal waa la isku bedelaa marka halles pr marka waxaan leenahay waxaa la dhahaa halogenation waxaa la dhahaa reactionka markuu chemical reactionka markuu bilaabanayo waxaa ku jira wax la yiraahdo halogens like pr oo kale waxaa ku jira halogenation ayaa ku jira maadaama halogen oo meeshaan oo yaalo waxaa leenahay productiga soo bixi doonana asagana waxaa ku jiri doona wax la yiraahdo halogen so marka waxaa la isku bedelaa reactionkan meeshaan aad ujeedid waxa lagu bedeli doonaa waa la isku bedelaa kana soo qaad keen pr
hydrogentana bedeleysa H-tana waxay bedeli doontaa Br ta bedeli doontaa so marka waxay noqon doontaa pattern haye H-t maxaa soo bedelay Pr soo bedeshay Pr soo bedeshay plus H xaaladda noocana markay soo baxdo okay productiga soo baxana waxaa la dhahay waxaa lagu daray waxa la yiraahdo halogenationkii waa kana xaggaas una hydrogena laga soo saaray ayaa waxaa lagu daray intaan waa isla socotaa intaana waa isla socotaa waa kana ayagoo diyaarsan waa kana Pr iyo HBr ayagoo isku dhegan so markii habkan waxaa la dhahaa waxa la yiraahdo halogenation maxaa la dhahaa halogenation reactionka markuu bilaabanayo waxaa ku jira halogenska markii compoundigan markii blast uu soo baxayo productiga soo baxayana halogen ayaa lagu baahan xaaladda noocaas waxa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo macnaha reactionka isku bedelida marka uu marayo waxaa la socda waxa la yiraahdo halogens arrinta noocan maadaama halogensku reactantigan ay ku jiraan productigana ay ku jiraan waxaan leenahay waxa loo yaqaanaa arrinta nooca la halogenation ayaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa halogenation ayaa loo yaqaanaa halogenation ayaa loo